Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdisanac Cabdan. Halkan waa Tilmaamaha TV. Maanta wuxuu idiin tilmaami doonaa sidee loo qurxiyaa sawir mobilada Android-ka ah sida kombiyuutarada loogu qurxiyo oo kale. Waa casharo taxane ah ama musalsal hadba sidee dadku u yaqaaniin. Marka koowaad waxaan idin sharxi doonaa application-ka ugu fiican ee sawirada lagu qurxiyo. Marka labaad waxaan idin tusi doonaa habka loogu qurxiyo sawirada. Daawasho wanaagsan. aan cashirkeena gudaha sii galno. application-kan sharxda waxaan lahaa PixArt. waxaad si fudud u heli kartaa Play Store-ka ama easy browser noocyada kala duwan. Play Store-ka nagee qaanada raadinta ku qor PixArt. kan kara oo akonkiisa default baan yahay waaye install ay dhehaysaa. aniga ma rabo inaan soo degsado waayo hore ayaan soo degsaday. wuxuu ka codsanaa inaad ku xirtid Google Plus haddii aad leedahay, ama Facebook, ama registration oo si dhexdiisa laga dhex sameynayo. hadda aniga Facebook-gayga ayuu u xiran yahay. Cabdisanac Cabdan saa ujeedaan tan nafti ayuu wadaay ku xir. waad ku xiraysaa kabacdina meeshaadii ayuu ku geenaa. waa kaas aniga 103 photo, 1 flower, 20 flowers, memboxkayga 4. marka sawirada haddii ay inta ku soo galaan mobilkaaga soo doono ama hadhumo ama tuuga ka xado ama anyway ee noqotaba taleefanka si walba oo aad u weysid sawiradan ma wey doontid. waa baxaysaa meesha Play Store-ka tagaysaa, waa la soo degaysaa, kabacdi saan ayaad connect ugu dhehaysaa, ku arki doontaa sawiradaada. wuxuu kaloo leeyahay meel oo Facebook sida Facebook camal ah oo likes iyo comment iyo share waxyaalahaas. marka qofka ayaa ku ogolaan karo inaad edit garaysid meeshan editing inaad edit garaysid. marka waa kan nooma ogola. marka waxyaalo badan ayuu leeyahay. marka waad ka mahadsantihiin daawashadiina. walaal share noo leh, like, subscribe noo leh. marka kusoo dhawaada sawirka.